السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan dul taagannahay biyahaas aad u jeedaan waxaan dul istaagaynaa magaalada Muqdisho iyo xaaladda ay ku sugan tahay maalinta ciidda ee bishii 7aad ciidul adha ama ciidda arfo waad aragtaan meeshaas magaceeda waxaa la yiraahdaa daalo waxay ku taalaa bartamaha magaalada Muqdisho jidka Sodonka ee labada laami mara waxa dhex fadhiya aad u jeedaanna waa biyo aamudin inay tahay webi iyo bad waxaan loo kala garanaynin maanta waa maalin ciida dadka reer Muqdisho waxay ku sugan yihiin qaarna inay ciideystaan qaarna wadooyinkooda ay biyahaas ku yaalaan haddaan u sii daadego dad baan garanaynin wadadan meesha ay ku taalo wadadan waxay ku taalaa jidka Sodonka isgooska Baarubax iyo isgooska Galaxy haddaan si dul istaago meesha biyaha ay ku jiraan waa Shaleem walaalaha iyo X daalo ama xafiiska daalo meesha ay saarnaa jirtay maraan socdaalku marayay meesha waxaan kula kulmay baabuur oo aad biyaha u dhex yaala dad badan oo ka cabanayo meesha ay joogaan markaan wareysiyo la qaato duruufo jira awgood aanan soo bandhigin raggaas laakiin baabuurka sida looga shaqeynayo inta maalmo uu ku jiray ayaan wareysi ka qaaday dadna way faraxsan yihiin dadna baabuurka ayaa wuxuu ka dhex yaalaa meel wada ah oo go'doona waxayna ku jiraan 2 habeen iyo 2 maalin taas darteeda waxay ii diiday inaan ag maro oo aan wareysiga ka qaado isla wareysiga aan ka qaaday darteedna way ii saamaxaysay rag aan wareysi ka qaaday inaan soo bandhigo taasina waxaan ka cudur daartay duruufo jira awgeed marka biyahan meeshan waxaa joogto ganacsato aad u fara badan guryo kule goobo ganacsi waana wadada halbowlaha wadanka ah waxa magaalada Muqdisho marka meesha wixii ahaa jirtay meelaha ugu saxmada badan markii la yiraahdo isku socodka gaadiidka ganacsiga iyo meelaha isgoosiyada meesha ugu saxmada badan ugu population badan ay ahayd magaalada Muqdisho wayna tirsamaan magaalada Muqdisho wadooyinka maraan ee laba ah oo midig iyo bidix loo kala soconayo waliba waa mid ugu weyneed ugu qadiimisaneed ugu muhiimsaneed maanta waxaan nasiib darro ah Soomaali ayagoo wada joogan magaalada Muqdisho ayadoo la wada joogo in ay ku fiirsadaan biyahaas oo gooyay isla Baarubax wadada looga leexda ee masjidka weyn ee la yaqaano masjidka Xareed oo ilaa ay hadeertaan aan wax baabuur ah iska dhaafi xataa aan dad shacab ay mari karin magaaladu ay ka go'an tahay isla wadadan oo ah halbowlaha magaalada Muqdisho ee labadii jid ee la soo gooshi lahay ilaa iyo afgooye ilaa iyo balcad la soo gudbi lahay oo haddana baabuurka gaadiidka oo aad u yaraaday haddana inta yar ay socoto ee baabuurta loo yaqaan bajaajka oo saddex lugaaleedka iyo caasiyada oo halkan biyaha yaala ka wareegsanayaan ayagoo markaas sii marayaan wadooyin kale oo jajaban oo xaafado ah oo ayaga laftooda roob ku da'ay oo biyo ah kadibna ay kala kulmeen waad arkaysan baabuurkan aadka u weyn oo safar ka yimaaday meesha uu dhex yaalo inta uu leeyahay oo xamuulka alaabta uu sido cid isku soo biimay karta ama mari karta baabuur yar iyo mid caasi midna ma jiro marka waxaan dhihi lahay reer Muqdisho inay meeshaan ay cabasho ka muujiyaan dad baa meeshaan u xil saaran oo wadooyinka iyo sameentooda iyo biyo ka bixinta u xil saaran marka waxaan dhihi lahay in biyahan meesha laga bixiyo oo la gaarsiiyo xarumaha yani quseeyo in ay meesha wadooyinka dhisaan biyahana ka bixiyaan dadka quseeyaan in loo bandhigo oo la gaarsiiyo si baabuuradaas ku rafaadsan iyo gaadiidladaas meesha biyaha yaallo looga saaro oo shaqo loogu qabto waxa laga yaabaa shacabku meeshan inay og yihiin ay ku dhibaataysan yihiin laakiin dadkii yani hay'adda quseedo biyahan meesha inay ka saarto oo laamiyada ay sameeyso in aysan ogeen welina la gaarsiin marka fadlan waxay idinka codsanahay inaad sii shargaraysaan oo aad gaarsiidaan si wax loogu qabto walaalaheena ee baabuurta meesha ku wato ku dhibaataysan iyo kuwa ku shaqeysta ama xaafadaha degan ama ku ganacsada si ay u soo baxdo bilicdii magaaladan Muqdisho wadadan jidka Sodonka gaar ahaan Baarubax ilaa iyo X daalo inta inay bilicda soo baxdo wadooyinka la isku furo inaad gaarsiidaan haddaad gaarsidaanna waad ku mahadsantihiin waxa idin la hadlayo walaalkiin Cabdiciise Cabdullaahi aad baad u mahadsantihiin mideeda kale tana baabuurka markuu meesha uu ku dhacay
يعني wax gurmada xataa ma uusan helin ilaa iyo 2 maalin cid u timaado oo gurmada ma aysan helin taasina wax aad looga xumaado ay isku fiirsadaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho jeedinaya ummadda ku nool magaalada Muqdisho يعني markay tan oo kale ay qabsato qof walaalkiina oo safara oo wadada yani aan aqoon hadii xataa oo ku dhaco inaad u soo gurmataan oo aad ka saartaan dadkeena gaadiidleyda baabuurta iska leh ama dadka xaafadda degan ee dadkaas aad caawisaan hadda 2 maalin ku jiraan cid caawisana ma aysan helin taasina waa nasiib darro aad u weyn marka biyahaasna ma aha biyo la mari karo aqoon darro u geysay haddana ka gadaal muusan helin gurmad marka waxaan baaq ugu dirayaa in la isku naxariisto oo la isku gurmado la gaarsiiyo meel walba oo social media la gaarsiiyo haddii taa Facebook haddii taa YouTube meel walba la soo dhigo si ay u arkaan hay'adaha quseeyaan inay shaqadooda meeshaan tahay qusayso in la gaarsiiyo taasina waa idin ka codsi meesha waxay aad jirta xafiis oo daalo aad u saxmad badan dadkana ay ka baxaan hadartaana waad aragtaa waxaad moodaa meel laga guuray qarni hore oo laga guuray oo qof shacab xataa mari maayo baabuur warkiisa dhaaf xataa xayawaan ma marayo marka waxaan dhihi lahay waa bilicda magaalada Muqdisho in ay hesho gurmad degdega oo la gaarsiiyo xarun walbo oo hay'ad ah oo qusayso inay meeshaan shaqo ka qabato waad mahadsantihiin dhamaantiin waxa idin soo gudbiyay fiidiyogan waa aniga walaalkiina Cabdicasiis Cabdullaahi Axmed waxaadna ka daawan doontaan YouTube channel-keena Socdaal Official aad baad mahadsantihiin mar walba waxa lagu yaqaanay Soomaali inay isgarab qabato oo isgaarsiido waxaan rajaynayaa fiidiyogan inaad meel walba gaarsiin doontaan Facebook walbo YouTube walbo meel walba inaad gaarsiin doontaan waxaan idinkaga sii tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh